بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة وقتك كوبا دراديت إن شاء الله تعالى سكوبا بانو تلمامي دونا عنوانك كصابسا إدارة الوقت وكما دعنا وانت ولا لدسوق بيه waqtigan ama casrigan dabaynu joogno siba reer galbeedka ay madan ba aragteen qoraallo aad u tiro badan oo lagu tilmaamayo idaarat alwaqt ama maamulka waqtiga bal qaarkood ay ka mid yihiin bestseller bookska ama mabiicaadka ugu waaweyn ee dunida lagu kala gatay bookska si guud baan markaa isaga dul mari doonaa anigoo inta badan qaban doona kitaabkii sunnadu waxay yiraahdeen هذا التراد الرجال قلبتك وحن رجينيا أنت تلمامين وقرآن يا حديث عن أخي ولذلك وان كم مار مدونا إن وحبضا مراجع دوضة تلمامه وقت جودهان وحكم دي هاي صدح ده موردة مصدح ده هنتيو ده هو وين ده هاي سطو هاي ده حضارات كبني آدمكو وصدح شيء سيد اللي يسلف القلية بيد هذا والوقت والأرض والإنسان ووقته يقف بنا آدم يدل سفلسين شكل الشيء يا حضارات كلا تلمامة واحد هذا صدح ذا الشيء وواصله ومضى ولما وقتك أنت أي كفائدة سته أي كحرن يهور مركز يا البحر مدد يدد مدد يشريتان كذي يحوق يدبا markaynu quraanka dib u eegnana ahamiyada waqtigu leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badan buu tilmaamay walidaalika bay culimadu waxay yiraahdaan waxyaabaha rabbi ku dhaarta waa tilmaam laynoo tilmaamayo shaygan weynidiisa quraankana waxyaabaha waqtiga ku saabsan meelo badan baa Ilaahay ku dhaartay wal fajr wa layaalin 'ashr wal layli idha 'as'asa was subhi idha tanaffas والعصر إن الإنسان لفي خسر والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والضحى والليل إذا سجى يعني النصوص آدو بدنا قرآن وما لنت يهبينك أما قبل لك كم إذا لغو دارنا يا ما عصر قولا لغو دارنا يا قرآن كقطع لو حاصل من واحد تلمام يا وقت جايه قيمة أولية واحد هذا وقت وهنتك لو كجديسين وحكجديسين كو ومورد محدد بين هذا وهنتيجو أن قفكست بني آدم والدنيا ده كرشوجا أفريلا تنسعد ضمه هستا إن الله قبض المايو هذي السنوات كنا لا شطحينا إن جو أنبض هستا متكنت النول يمد لحدا النول با وقت جو أنبض لهذا واحد هذا هو مورد أن تخزين كأقبلين ما كيت سمو وهنتيجا aqoonta waxyaabo badan waa la kaydin karaa bay yiraahdaan laakiin waqtigu kaba mid ah waxa kaydka gala 24 saacadood ay ku soo marayaan wana compulsory waxay yiraahdaan wuxuu ka mid yahay waxyaabo aan tacwiidka aqbalin nolosha waxa kale oo dhan waa la gadan karaa waa la kiraysan karaa si unba waa la deynsan karaa waxa kale oo dhan bay dhahaan nolosha waqtigu intaana midna ma galo إنكينو وهنتيدا بدن لساعد مهل كرر ديرادا أفريلا تنك ساعدود بوهستا غيري دنا ساعد دي بلو ما دغي كارو وقتي سو كو دمانيا سادرددو خيدادان وقتيغو ومورد محدده وان جلين كيد ما غلو لما غدان كارو بدل ما غلو واد كو قسبنتا ان تصرفيدا باي لهدهي قيمهيسنا وخون بو كو كوردها باي لين سيده لوغا فايديستو وقتك قيمهيس وحكو كرنا استغلاله سيدا دوغا فايديسته ساعد قيمه له يا ساعد ان قيمه لهين لبدaba wad soo maraysa hadii guud ahaan leegana bay dhahdaan waa muddo majhuula inta aad dunida joogayso sadaradeed waxaan qofka bini aadamka ah hantida dhabta oo haysta waa inta uu jirayo hantida dhabta aad leedahay waa inta uu jiro والرأس المالي الحقيقي قفك بني آدم كايستو
إمام الحسن البصري رحمة الله عليه يا وحى لغا شيغا إنه ورن جري يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك ورير نبي آدم ومالمون با تahay buu leeyahay maalin markay ka tagtaba qayb adiga kamida baa tagtay idan cimriga la sheegayo iyo waxaynu haysano waa seconds adiga qiimo kuma leh laakiin nolosha marka la xisaabanayo marbuu jajab ku qiimo leeyahay qoladan orda maxay kala dheereeyaan koon xufta carara 9 waa seconds wax ka yar ayaa qiimo u sameeyay idan ثانية أما second wax ka yar ayaa one lagu galaa ama two lagu galaa ama jaayisad lagu helaa ama magac lagu yeeshaa ama kan lagu yeeshaa haddaba waqtigu qofka bini aadamka ahi waa waqtiga waxaana cajiiba waqtigan aynu hadda joogno reer galbeedku waxay dadka bareen waxaan bini aadamku xoog u isticmaali jirin oo ah dadku markuu xabaasha ku sii dhawaadaba inuu farxo birthday waa maxay badbaad cimrigii tuurtay Soomaa xaq xabaasha markaad u sii dhawaataba miyaad farxi wax qabadku ma farxaysid waxaad intaajada soo kale ma jiro waa mujarrad in sanad ka soo wareegay intii aad joogtay inaad xabaasha ku sii dhawaatay weeyaan waqtiga caynka lehi sida qiimaha u leh ka faa'iidaysigiisu wuxuu ku xidhan yahay bay yiraahdaan qiimaha waqtiga inaad fahamto haddii qiimaha iyo ahmiyada waqtigu uu leeyahay uu fahmo qofka bini aadamka ah waxa uu fahmaya garanaya sida uu uga faa'iidaysanayo dadka badna xanuun buu ku noqdaa markay qiimihii waqtiga garan waayaan xulay wax allaaliyo waxaan qabtaan garan waayo waqtiga maxaynu ku dilaa haddaad dhimato waxa quraanku inoo sheegay bini aadamku inuu ku warwaraa waa maxay rabbi rji'uun ilaahu i'ali waa kan adimka garan laaday si aad tiraahdo ayaa calaalku noqon doona ilaahu waqti yaro damba halaysiyo hadduu marka qofku bay yiraahdaan hadafku kallumo qiimaha waqtigu uu kallumo ahmiyadiisa uu garan waayo waqtiga laftiisa qofka xanuun ku noqda ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لبا نعمة أي يشرب النبي قولي وضد بدن يكوك تسومين أكتود عن قيمة كيالا ومحي وعافماتك إيا فراغة عافماتك ما كانوا لنا هاي ومحي معنيس dadka jooga dhakhtarka umniyadooda ugu weyn ma taqaan qofka dhakhtar ku jira waxa ugu weyn ee uu rajaynayo qofka dhakhtarka ku jira waa inuu marun kaco akbar umniya dadka inta haysata ma ogti subax inta soo kacday ma tiri alxamdulillah rabbil alamin saakwan caafimaad qaba مسوى daily life وسيدي دي روتين كهيدا ترجينيسي أنا تصبح يسقى صك عدو دردوريسو ومالها أمر بتيجي صار نقطة already واد رجينيسي والنبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام نعمين كقوة وين ابن آدم كوجرن كريلاقي وحويا عافماتك هي وقتك منكم مركب اللي يرد يهينا والله وضع وفي عنا وهيستو كدا هذا لقاره labaduba way lumaan daa markaad sii jirtaba caafimaadkaagu hoos buu sii socdaa isla markaa waqtigaaguna wuu sii yaraadayo waa lagula yeeshaa calaaqdiyo dadka kugu xidhan iyo mushkilaadka taxallilisay ayaa badanaya markaa wax badan baana jaanis u helin laakiin ninku markuu dhalinyarada yahay labadaba keligii baa haystaa caafimaadkana inta badan mostly dhalinyaradu caafimaad qabtaa waqtigana waxba kuma xidhna isaga maamusha waxa uu nabigu inoo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam si aynu u fahamno waqtiga qiimihiisa ilaa markaas aynu idaareyn karnaa markaasaad garan kartaa maxaad ku qaban doontaa qiyaamaha marka la tago
su-aalaha ugu horeeya la isweydiinaya ilaahay hortiisa lagu joojinaya dhaqaaqi maysid su-aalaha inaad ka jawaabto mooyaane su-aalo 5 ama 4 riwaayadka xadiis waa ku soo arooreen waxaa lagu weydiinayaa cimrigaagii iyo waxaad ku bixisay qiyaamaha ilaahay hortiisa ka dhaqaaqi maysid inaad su-aashaa ka jawaabtid mooyaane maxaad ku qabatay cimrigaagii waa mar labaad waxaa lagu weydiinayaa cimriga qayb ka mid ah war dhallinyaronimadii sidaad u gashaa lagu weydiinaya waqtigaad dhallinyarada ahayd mar saddexaad waxaa lagu weydiin xoolaha xaggay kaa soo galeen iyo xaggaad ku bixisay mar afraad waxaa lagu weydiin aqoontii maxaad ku qabatay wixii rabbi ku baray waxaad aqoon heshay maxaad ku qabatay su-aalaha kani waa su-aalo qof kasta oo aadama ah sugaya in aakhiro la weydiiyo afarta su-aalood markaa 2 ka midi waa cimriga midi waa cimrigii oo dhan iyo noloshaadu maxay hadaf lahayd maxaad qaban jirtay noloshii oo dhan midna waa cimriga qayb ka mid oo ah qaybtii aad ugu caafimaadka iyo firaaqada badnayd waa markaad dhallinyarada ahayd waa qaybtii iyadoo labada nimcee dheeraadka uu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam sida awgeed qofka muslimka ah mar kastoo cimriga lagu sii dheereeyabana xisaabtiisa sii badanaysa awalam nucammirkum ma yatadakkaru fiihi man tadakkar وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إلهي وحلا أولم نعمركم ورمينا إذن عمر سنين مدوان توبا إنو كوان توبا با إلهي سبحانه وتعالى نبي قلنا حديث في بخاري وحليه أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة إلهي وعذر داري نمو الدبو دقاي وأجشي صدم لو قد دقاي إلا ولحدا كقاري يعني لحدا هداد قادو عذر دارنا حتى هلي ما يسدال لي وحاو النبي ينبري عليه الصلاة والسلام مركي إلا إنو الشيء قيمها ووقته لي إيه سؤالها قيامها الضنبية إيه إن وحلو حسابي يوي هي أيها هدنا وحو النبي ينو الشيء عليه الصلاة والسلام سيدا وقفي عن اللي وقفا إيدي سنكره nolosha qofku isku wada qura ma marto nabigu wuxuu leeyahay shan horteed ka faa'iideyso waa maxay dhallinyaronimadaada ka faa'iideysa buu nabigu leeyahay intaanad gaboobin marka qofku da' noqdo oo weynaado garaadkiisu roon yahay tajribo fiican oo nololeed buu leeyahay laakiin awoodiisa soo yaraata wuxuu qaban jiray ama uu awoodi jiray markuu dhallinyaradaha ma awoodo nolosha waxay ka tahayba sida awgeed buu nabigu wuxuu ina leeyahay calayhi salaatu wasalaam war intaad dhallinyaro tahay intaad activity-ga leedahay intaad caafimaad qabto intaad waqtigaaga adigu leedahay aan cidi kula lahayn markaad weynaato ee caruur yeelato ee xaas yeelato ee bulshada wax u qabato ee dadka ku xidhanto dad badan baa waqtiga kula leh laakiin ninku markuu dhallinyaro yahay isaga waqtigiisa iska leh hadduu boodboodayo iyo hadduu cayaarayo iyo hadduu 5 saacadood TV hor fadhiyo iyo hadduu wax ku baranayaba he owns isagaa leh cid lama leh sawgeed buu nabigu leeyahay dhallinyaronimadaada ka faa'iideysay intaanad gaboobin caafimaadkaaga ka faa'iideysay buu nabigu leeyahay intaanad bukoonin qofku markuu gaboobo inta badan bukaan socod buu noqdaa inta ugu badan leh dadku markay da' soo gaadhaan xanuunadu waa iskaga bilaabmaan walow uu nool yahay waa bukaan socod amaa qofku markuu caafimaadka qabo markuu dhallinyarada yahay markuu da'da yar yahay waa xayawiya waa wada nashaad waa activity maskax ahaan jidh ahaan caqli ahaan meel walba waa caafimaad qaba nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam inta aanad xanuunsanin caafimaadka ka faa'iide wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam intaad waxaysato ka faa'iideysa intaanad faqrinin bini aadamku markuu faqriga hiyay wuxuu yidhi haddii maalku soo galo والله سيدنا وديالي لهاي حقا رواد بحين لهاي صدقات كرواد ديبي لهاي داد كرواد حديدين لهاي مركا لكن سوق شاوم با
jeclada ku badataa waayo sidaynu u kala maal badanaynu u kala baahi badanay asalka bini aadamku waa kaa faqiirka lagu sheegaya wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno iyo wuxuu cabiyo meel saxreetaas u baahan yahay laakiin taajirku wuxuu u baahan yahay 20 mashruuc baa afka kala haya qof waliba jeebkiisa inta ku jira aqligiisuna uu ka fakeraa ninka 1000 shilin haysta mashaariicdiisu waa 10,000 wuxuu isleeyahay haddaad 10 isla hesho wax waliba dhag bay noqon lahay ka 10,000 laahay $10,000 markaad seeto mashruucagu waa 100,000 taadar haddaad milyan haysatana mashruucagu waa 100 milyan idan qofka bini aadamkii waxay dhahdaan hantidu uma kordhiso ghaninimo baahay u kordhisaa al-ghaniy huwa Allah subhanahu wa ta'ala haddaba waxa nabigu inoo tilmaamay alayhi salaatu wasalaam marka wax ku soo galaan ee nooc min al-ghina hesho xaqii sare ka sii fakarina ghinada intaad haysato ka faa'iideyso intan ka janagal intan dadka wax ka tar intan wax ka qabo waxa kale uu nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam firaagaka qabla shughlik inta aad firaagatay qofka bini aadamka ay markuu sii koraa waxaynu leeyahay calaaqaadkeeda xiriirkiisa relationsku bulshada leeyahay tira badata marka waqtiga xiriir ku noqda waqti uu shirku jiro waqti uu mid la hadlayo waqti uu reer isu maslaxayo waqti uu kan qabanayo qofku mashquul ayuu noqdaa laakiin waqtiyaa jira firaagu uu badan yahay nabigu wuxuu leeyahay marka inta aanad mashquulin ee firaaga tahay ka faa'iideyso ugu dambeynna nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam war nolosha ka faa'iiday intaanad geeriyoonin taanad godka gelin nolosha ka faa'iiday tamanaheedu waxay tahay waqtiga iyo chanceska iyo furaska inaad marnaba dayacin time managementka lagu sheegaya waa intaa waxa weeyaan furaska iyo awqaadaadu inaanay kaa dayacmin nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ina leeyahay isagoo taa inoo tilmaamaya war haddii midkiin uu gacanta ku hayo fasiiladu waa geedka yara timirta marka la beerayo geed timiraad aad gacanta ku hayso oo qiyaamuhu uu dhacayo oo aad ka gaadhsiin karta ka gaadhsii buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ibnu mascuud baa waxaa laga sheegaa inuu leeyahay maalin cadceedi dhacday oo aanan waxba kororsan oo ajashayduna gaabatay sidaan uga murugoodo waxaan uga murugoodo ma leh maalin kaa khasaartay murugo ma kugu haysaa waxaad saga aragtaa umda kolleyba beri cadceedu soo bixi maalinta kaa khasaarta ibnu mascuud wuxuu leeyahay maalin cadceedi dhacday oo cimrigaygii laga jaray oo aanan camal samayn waxba aanan kororsanin maalin igaga murugo badani ma jira buu tilmaamaya walidaalika baa culamadii hore muslimiintu gabayo tiro badan oo ay dhalinyaronimada ka tirinayaan waqtiga ka tirinayaan aada u tiro badan bay sheegaan ilaahayna wuxuu ina leeyahay war habeenkan iyo maalintan iyo cadceedan iyo dayaxan iyo waxaan isu weydaariyey litaclamuu cadada asiniina walxisaab sanadaha tiradooda iyo xisaabta inaad garataan inay nolosha wax kuugu kordhiso aakhire markaynu tagnayna waxaa laynoo sheegay qaala kam labithtum fi lardi cadada siniin in laynoo odhan doono war adduunkii imse sanadood baa joogteen qaaluu labithnaa yowman aw bacda yowm fas'al ilcaadiin qaala in labithtum ilaa qaliila low annakum kuntum taclamuun afaxasibtum anama khalaqnaakum cabatha waanakum ilayna laa turjacuun fatacaala allahu almaliku alxaq ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala qiimaha waqtigu uu leeyahay saynu uga faa'iidaysan lahayn culamadu waxay odhan jireen markaa waxaad ku tala gashaa bay leeyahay haddaad rabto nolosha inaad ka faa'iidayso azuhdu fi lfuduul bay dhahdeen weligaa isku day bay dhahdeen dheeraadka inaad ka zaahido dheeraadku waa maxay aragtida dheeraadka iska dah inta aanad u baahnayn daadaawashadeeda iska daa bay dhahdaan maqalka inta aanad u baahnayn dhaaf hadalka inta aanad u baahnayn ka tag dad dhexgalka inta aanad u baahnayn ka tag hurdada inta aanad u baahnayn ka tag nolosha oo dhan inta aanad u baahnayn internetka inta aanad u baahnayn ka tag imisa waqti idin baaqi noqon lahaa baad u malaynaysaa bahalkan layna raaciyey
suuqa markaad marayso iyo guriga markaad joogtay mar kastaba waad furaysaa Facebook gal kan gal wargal maxaad ka haysaa maxaa ka soo raacay mise saacadooda TV daawata wad malaynaysa كان أقول يروح إلى هذا almost بالورك صار هذا لما جورا ورا بودي جيستا كويري لما جورا ورا إنه حلقة ولا بنص ساعين كقاط شاشة كويدين يروح ويان هذا مال أنت صدح ساعات ضاوته طبعا سنوات وتصدح ساعات جامعة تجيس مسد قريبة قادر نهاي daily ستري أول ساتجيس مسد قريبة قادر نهاي امسك كريدت تور ويان كورسس كقاطه وحين لو marka isku dartaan waliya 60 كريدت تور waliya 80 meel sa ku qalay jabisa Soomaa imisa saacadood weeyaan inta TV-ga daawata iyo inta aad waxbarashada tagto ma isdhinac dhigtay nimankan dibida waaga surwaalka gaaban loo xidhay boodbooda inta daawataan ogaan cududa kooskuusanne هلا يرادو هرج للنفاية بيدبدا كيريا لبدا برود نك دحغليه با فيعن هادينا صحن كما that's the logic wax kalo ka dambeeya mad garanaysa wax kalo ka dambeeya ma jiro kan gartay muruqyada baa ku smeeyay eriyayo lacagna uu helaya adu maxaad helaysaa nothing exercise ma haadu iyo hadda dibada boodbooda dhaamay lahayd oo adu ma boodboodaysid waqtigaagu u dhimanaya laba birood baa caag dhex marayna aakhiriya duntoona wax kama taro waxa laga yaabaa in dhalinyaradu isku bedesho Manchester baa badinaysa iyo City baa badinaysa laakiin su'aasha isweydiinta le waxay tahay time management ka la sheegay waxa weeyaan waa fuduulka ka tag dheeraadka ka tag hurdada in aanad u baahnayn sariirta isku nabin intay naftu u baahantay seexi laakiin in aanad u baahnayn Soomaaligu raaxada muxuu yaqaanaa markaad fasaxa yeesho maxaad samaysaa khurada badisan Soomaa kana ma cimrigaaga ari ka tirsanay qoladan gaaleeda buuraha fuushaaba la qaato murqiyada dhisanaya fasaxooda buurta fuule wa khawaar ruuxiya haya iyagana waxay buurtan u fuulayaan xataa hurdada ka imanaynin psychologically bay bukaan marka inuu ismashquuliyo physically inuu daalaabo doonaya si uu mentally u nasan karo waxa la dhahay marka haddaad maqasho time management waxa weeyaan bay dhahay noloshu inay ahdaaf yeelato that's all nolosha inaad target ka leedahay bishan maxaan qabtaa wuxuu programkaygu yahay qofka bini'aadamkii waxaanu qaban karin baa iska yar hadduu programmed yahay quraan baad qaybi kartaa kutubta sunnada oo dhan baad qaybi kartaa kutubta physics kaad qaybi kartaa kutubta biology kaad qaybi kartaa wuxuu dhan baad qaybi kartaa haddaad programmed tahay hadday noloshaadu hadaf leedahay waxaad rabto inaad gaadho targetka haddaanad lahayn مثلا quraanka haddaad istiraahdo qayb tabacaadkan macruufka hadda waa 604 page halka page 15 sadar baa ku qoran sida caadiga less than 2 minutes buu qofka bini'aadamka ku akhriyaa imsa goor baad u baahantahay page si aad u qaybto sadar inaad qaybto imsa goor inaad ku celisaa baad u baahantahay 10 jeer 20 jeer yani qul wallahi inaad qaybto imsa goor inaad akhridaa baad u baahantahay haddaad tidhaahdo 30 jeer baan u baahnay okay page inaad ku celiso 30 jeer oo waa 2 minute waa 60 minutes waa 1 hour baad u baahantay qofka ugu maanka yar la hadlaad inaad page qaybi karto that means waqti kooban maxaan tusaalaha quraanka ugu bixinaya waxaan ugu bixinayaa hadafkaagu hadduu cad yahay waad gaadhaysaa 604 maalmood baan ku qaybayaa 604 page haddaad tidhaahdo 604 maalmood wax 2 sanadood ka yar waa wax 2 sanadood ka yar mucjiso maaha waa nolosha caadiga bay ka mid tahay laakiin waa haddaad hadaf leedahay aad programmed tahay garanaysid maalin kasta saacadaad akhriyayso laakiin haddaad xamaasad tahay wallahi quraanka waa inaan qaybaha oo maanta akhridid oo berri nasatid oo saadama ku celisid oo saakun ku celisid 10 sanadood qaybi maysid
وهي برنامج متهد هدف كيو كان دعوة قرآن كغيب لكن ما مانج كرين وقت قانو ما تصمينين ما كنت لقرين واحد كو صمين لهاي واحد كان يكتون ما لنا سدح بيت قيب لبا عشان اسكغتك وهو مشغول ايده قفك بني ادم كهي وحا وصميستو وقتي si fudud buu sameeyaa ma laga yaabaa inaad tiraahdo waqtaan waaye waxay yidhaahdaan mahmaa baa jirta qolada time-ku ay sheegeen waxay yidhaahdaan waqtiba lama waayo ee masaladu wuxuun bay la mid tahay bay yidhaahdaan waa jalxaddii dhagaxa lagu guray bay yidhaahdaan jalxadda ma taqaaneen ashoonka kuusada haddaad dhagaxan ku gurto imise dhagax bay qaadaysaa waxoogaa haddaad tiraahdo ciid kaga dabashu ma qaadaysaa dee meeliya dhagxanta u dhexdhexaysa ciiddu galaysaa waa qaadaysaa soo maaha haddaad tiraahdo laba koobo biyaa kusii dar ma qaadaysaa ha waxay dhahaan waqtigu waa sidaa maxaan uga jeedaa dadku inta badan dhagxantay eegaan laakiin inta kale ma eegaan bay yidhaahdaan haddaad wax walba istiraahdo saacad si ama 2 saacadood si waxa jira bay dhahaan waqti badan oo qofka bini aadamka ka dayacma oo wax badan ku qabsan karo ma ku xisaabtanta 5 minutes inaanay ka dayacmin ama rubuc saac inaanu ka dayacmin halkee waa train-kaad raacdo jaamacadda iyo guriga inuu nus saac socdo nus saacaad quraanka ku qaybi kartaa hadduu programmer tahay train-ka la socotay waxay dhahaan waqti aad shaqo kale ku haysay ayaad waxan kalena ku dhex qabsan kartaa xafiiska adigoo fadhiyaad wardiyi kartaa inaad wardidaa maxay qaadanaysaa subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah subxaan allah inaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa beere minute 100 inaad tidhaahdo minimum 60 waad odhan kartaa laakiin way nala badan tahay haddii lagu yidhaahdo wardigaaga subaxii waa 100 goor oo subxaan allah iyo 100 goor oo alxamdu 100 yaa odhan karayaad soo odhanaysaa socankaa maaha laakiin haddaad program leedahay waa waxa ugu fudud ee la qabto waa markaad guriga ka baxday ilaa intaad classka gaadhaysa awraadaada oo dhan ku filan waxa laaliya waxa wardi sunnaa ku soo arooray from the bed ilaa iyo classka intaad ku socoto 5 daqiiqo 10 daqiiqo socota 10 daqiiqo wardi oo dhan kuugu filan 10 sii socota inaad sii wardido 10 soo socota inaad soo wardido wardi isaga kuugu filan haddaad xaafid quraanka ku tahay quraan akhrisoo dhan 10 kaasaa kuugu filan xaafidka caadiga ah ee quraanka rubuc saac buu jiska akhriyaa gabadhluhuna nus saac buu akhriyaa idan waqtigu waxay leeyihiin sida looga faa'iidaystaa dhagxanta qurama hayda yani jalxadan waxay tusaalaha uga dhigeen inuu program kasta weyn oo aad samaysato ku kale ku dhex jireen aad samayn karto ku kale ku sii dhex jireen aad samayn karto sida awgeed ilaahay wuxuu quraanka inoogu tilmaamayaa kuwii habeenkii soo jeeday habeenkii dadku seexda soo maaha ragga badh baa programkooda uu ka mid yahay habeenkii wax ka mida inuu soo jeedo inagu habeenkii wax ka mida inuu xagga hore ka soo jeednaayo ama aflaam sii daawanaa ama riwaayad sii eegnaa ama tv-ga sii eegnaa ama program majaajilaa sii daawanaa haddaad liidatana heesa sii daawataa iyo wax la mida okay dadka kani programkooda wuxuu ahaa habeenkii markuu cishaha tukadaan inay iska seexdaan waxay dhahdaan caafimaad ahaan xataa habeenkaa ka hurdo fiican maalintii waayo jidhku habeenkii wuxuu soo daayaa hormoono seexa ku leh maalintiina hormoono kaco shaqata ku leh waad isweydaarisay nolosha haddaad noocaa u isticmaasho hurdada maalintii oo dhan waxaa ka fiican hurdada habeenkii inaad maalintii snaab yar waqti yar qaadanaysa mooyaane dadka kani waxay programaysteen habeenkii intaad soo jeedo in ka yar umay soo jeedaan waanay ku janno galeen ilaahay wuxuu leeyahay innal muttaqiina fi jannatin wa uyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla dhalika muxsiniin kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun baa ilaahay yidhi habeenkii in yar bay seexan jireen in ku filan bay seexan jireen in ku filan bay seexan jireen laakiin inta faa'iidada lana way soo jeedi jireen inta aan faa'iidada lahayna way seexan jireen dadku sheekada ku soo jeedo habeenkii halkan 8 la tukadaa haddaad ardayto saacad 2 saacadood ka badan ma wax akhridaa waa caajistaan marka 2 akhridaan soo maaha 2 saacadood marka aad wax akhridaa haddaad seexato waa 10 habeenimo 10 haddaad seexato
imsaad soo toosi kartaa يعني أفرتها بين ما تصير عايزة لحسة عضو اسكو حاجة ما كانوا ردي أفرتها بين ما هدات صوك عضو إلى صلاة الصبح ساعة اللي راد باو ودحية قرآن بات قيبي كرتا صلاة باتوكان كرتا وحكلا بخرسان كرتا everything محانو قدن لنا إلهي سبحانه وتعالى وحتى المامي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ضد كان لينوش يجيو waxa laga yaabaa inaan ka salaad badnayd dad iyo kale laakiin waxa la inoogu tilmaamay waqtigooda say uga faa'iideysteen way program gareeyeen qof aan hurdo u baahnayn ma jiro qof hurdo ka maarmayna ma jiro bini aadam mid waliba uu seexday tatajafa junubahum an almadaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما هذا program garayso waa wax fudud قرآنك إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد مركو تببري هي صحابتي وحلقوا تببري تايمينج تقويمك وحلقة يا صلاة الليل كي انت بضن إني رقعداكم مرمان قوية بلد كان يمسن نوريلا بلد كان قرآنك رقعداك ما ورمين هي السنة ضبا انت بضن السنة فعلي قاو برقعدات المامتي لكن السنة قولي هناك ما ورمين السنة قرآن هناك ما ورمين لكن وحكى ورمي وقت جاي يسأل له فائدة إلهي وحين إليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا كيس دوبا يوبا إلى هيري هبينك كع يرمو يعني نسكي كع هبين نسكي كو أما النسكي كي يريبا ليلي وحير أما وحير كبادي أيضا سيدي الشيخ يسود نبي قلنا تلماما مركو تلماما يصونك صونك هو فضي بدن إيو صلاة الليل كصلاة الليل كهو فضي بدن كوي نبي داود بالو شيخ نبي داود محل يلي هبينك نسكي وسيحجر برسو سلسكي برسو سلسكي وانت أنا أيضا شيخ تبالا تلماما هردك وفل النوات سيحانسا لكن وحا وسميه وامحي أيضا وحي تلمامتين نبي قلنا الشيخ وحويا وتايم بروجرامينج وقفك وقتك يسوين حساب سنيهي أو حسابينيو إلهي سبحانه وتعالى آيات الضمو مركا كنت المامية إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن قفك مسلم كاهي وقت فراق الله يراه نولشي سبا كما ميدها وقت فراق الله يراه كما ميدها إلهي وحليه فإذا فرغت فانصب بالليل أمور الدنيا يا واحد مركز كسوة فارغضه دال بالليل تي آخره يورد دي عبادة دي كان كل دال بالليل إذا قفك مؤمن كاهي وحقرتي عمره إنه يريه wuxuu gartay inaanu kayd gelin wuxuu gartay noloshuba inay maalmatiyo seconds wuxuu gartay second kasta in aakhira la weydiinayo cimrigo dhan in la weydiinayo dhallinyaradiisa in la weydiinayo waxa uu soo hadhay markaa waa maxay waa idaaratul waqt waa inuu waqtigiisa program gareeyo waxa soo hadhay waa intaa haddaad program gareyn weydo waxaad u calaacali doontaa xataa idaa jaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun geeridu markay u timaado qaar baa waxay ku dhawaaqayaan baa ilaahay yidhi ilaahayow i celi waxaad dalbanaysaa waa maxay waa intaad imaka hayso waa intan aynu hadda hayno ayaa markaa umniye iyo dalab noqon doona dadkii khayrka ilaahay uu ku sifeeyna suurat al-anbiya markii nabiyada laga waramay innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat baa ilaahay yidhi waxay kuwa u degdega khayrka ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إلهي إننا وين هفريا وصارعوا إلى مغفرة صابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا هذا أيها الأحبة وقتي ومركز قيمه فهمتت وحد قرانيسا sidaad ula dhaqantid
bini aadamku inta badan xooluhu qiimihiisa yaqaan xoolaha saad ula dhaqantaan dad waxoogaa yar haysata habeen kasta waad xisaabtantaa tay shirkadu yaro ballaadhantahay bishii mar baad xisaabisaa sanadkii mar baa la xisaabiyaa waxaasoo xisaabaa lala daba taagan yihi maxaa loola daba taagan yahay bini meel cidla ku lumay inaanu jirin in la helo waxaa accounting iyo program iyo kan loo samaystay waxa weeyaan in la ilaaliyo inaan bini lumin ninka xoolaha leh intuu shaqada ku jira mooyaane habeenkii intuu maqanyayna iyagu u fakeraya sidii uu ballaadhin lahaa iyo sidii uu horumarin lahaa iyo sidii uu dhaqi lahaa iyagu u fakeraya xoolaha quraad haysataa waa waqtiye qiimahaasoo kale ma kugu leeyihi xoolahaad haysatee maalka ah waqtigaagaa ka qiimo badan oo noloshaadiiya sidaad kan ugu xisaabtanto ee ugu fakerto ee u horumariso ee ugu dadaasho ma ugu dadaasha isaga waqtigaaga ma u xisaabisaa oo ma ku xisaabtantaa maanta maxaa iga khasaaray 24 saacadood aan haystay maxaan lumiyay maxaan qiimo igu fadhinin maxaa u baahan inaan wax ka bedelo maxaa u baahan inaan timetable cusub u sameeyo maxaa u baahan systemkiisii hore inaan wax ka bedelo hadduu qiimaha weyn inoogu fadhiyo umamka xadaaraadkeenu sheegaynaa markaa waxaan leenahay waa siday waqtiga uga faa'iideeyaan ummadda waqtigeedu uu ku lumo inay qayeeshaana soomaalida ay la mid noqotaa xataa adduun marka la joogo ummadda waqtigeedu uu ku xisaabsan yahay sida wax loo soo saarayaana jabaan bay la mid noqotaa iyo jarmalka waayo laba bini aadan baynu inagamana caqli badna tacliintuna wax la baran karo laakiin waynan program garaysanayn waqtigaan qiimo inoogu fadhinin dadka wax soo saarana waxa ugu weyn ee qiimaha ugu fadhiya waa waqtiga shaqo kastoo la qabanayana time efficiency-gu waa waxa ugu muhiimsan wax kastoo program la fulinayo waqtiga lagu fulin karaa waa inteeba ugu muhiimsan iyagu waxay dhahaan waqtiga qoladan bugaagta badan inoo qortay waa erayo kooban waxay inoo sheegeen oo dhame waxay yidhahdaan kow hadaf yeelo target aad u socoto yeelo second to that waxay yidhahdaan subaxii markaad soo toosto to do list yeelo qaa'imat alacmaal maanta shaqada maxay sugaysaa markaad soo toosta bay leeyihin waa in jadwalkaagu halkan ku dhajisan yahay xalaad sii qortay bari 24 saacadooda soo socda waxaad qaban doonto marka waa inaad to do list yeelataa bay leeyihin second to that waxay yidhahdaan waa maxay jadwala shadwaling waa erayga af carabiga unoo leynoo sidan kale loo akhriyo jadwala in jadwal loo sameeyo jadwalka ugu fiican bay iyagu yidhahdaan waa inaad usbuucii mar buuxiso usbuuc kasta waxaad qaban doonto ama oo aad saacada u buuxsata bay yidhahdaan whatsoever ma idinku jiraa qof usbuuca soo socda wuxuu qaban kara saacad walba u qoranta usbuuca soo socda waxa uu rabo inuu qabtaayo u qorantay idaarat alwaqtiga ay sheegayaan time managementka ay sheegayaan waa intaa waa inaad hadaf yeelato to do list qaa'imat alacmaal aad qaban doonto aada leedahay jadwaladaad ku qaban doonto aada leedahay qodobkooda saddexaad waa tartiib awlawiyaat priority say kugu kala muhiimsan yihiin maxaa must ah inaad qabato maxaase 50-50 ah maxaad waqti haddaad u hesho ku xidhan maxaa hadduu kugu dheeraado aad ka kala riixi kartaayo kanuu qaadan karaa idan waxay dhahdaan prioritieskuna waa inay calaamadsan yihiin colors bay ku isticmaalaan say u kala horeeyaan nolosha dhammaanteedba jadwaladay u sameeyeen waa intaa waxa dheer bay yidhahdaan tartiib alxayaa noloshaada halkaad la maraysaa waa inay kuu balaangaraysantahay bay yidhahdaan the coming 5 years the coming 10 years maxaad rabtaa inaad noqoto waxay leeyihin noloshaadu meesha aad rabto inaad qabato waa inay planidka ku jirtaa waqtiga soo socda maxaan qaban doonaa مثلا intiina badane arday baa u badantay ardaynimadu waxay dhahaan mushkilaadka maanta caalamka ku soo biray waxaa ka mid ah maraykanka kale waxay dhahdaan dadka shaqeeya 80% waxay barteen kama shaqeeyaan bay dhahdeen
dadka shaqeeya boqolkiiba 80 waxay barteen kama shaqeeyaan waa mushkila waxay dhahdaan technology-ga cusubna qof kastaaba oo wax bartay 5 sano markay waxbarashadiisii ka dambayso 50% buu qiimaha lumiyay wixii uu bartay haddii aanu istatwiirin that means dad 5 sano jaamacadda ka sii maqantay shaqana aanad qaban 50% baatay shaqada lafteeda haddaad qabanayso ay si routine tahay bay leeyihiin oo shaqo horumar samaynaysa aanay ahayn 50% baad lumisay waxaad soo baratay cilmiga dee lama xifdisanaado wixii practical gala unbaa nolosha ka mid noqda beri baan wax bartay ilaa uu yahay iminka dugsi sare imtixaankii idinka qaada waa wada dhici lahayn socanka ma waa soo baranay laakiin dee cidina ma hadalhayso ma xasuusna beraan wax bartay wax ma tarto walidaalika waxay dhahdaan waxbarashadu qofku subject uu baranayo bay dhahdaan 3 shay haddii laga helo way fiicantahay waa jadwalo fiican bay dhahdaan haddii kale waxay leeyihiin jadwalkaasi adjustment buu u baahan yahay dambe qolada carabiga waxay dhahdaan waa rafaqa bay dhahdaan الراء والفاء والقاف bay dhahdaan in laga helo malaydinku kuwa ingiriisiga jeceshay inuu kuwa carabiga idin sheegaya rafaqadu waa maxay ra'du waa ragba waa interest haddaad wax baranaysa bay dhahdaan waxaad xiisaynaysa baro waxaanad xiisaynayn haddaad barato waxay u badan tahay inaad hadhowna ku shaqayn doonin jaamacad baan ka baxo shahaadad baan qaatay qiimo ma leh waxa bahashan loo galaa waa maxay inteeda badan dee waa hunguri socanka maaha sanad walba wixii marketka ku badan bay ardadu u badataa walidaalika bay wasaaradka waxbarashada dunidu sanadba jaamacadka qayb bay yareeyaan ardada loo qaadanayo waa polisiga dowladda qaybna waa la ballaadhiyaa qaybna waa la soo yareeyaa dadku muxuu dhakhtarnimada u jecel yihiin waan lagu shaqo waayin bini aadam buu ka dunidoo dhan jooga yani waxa weeyaan waa jobs shaqadeeda ay meel kasta taala idan wax loo bartay ugu badan ee dadka ay wax u bartaan dawladda saraa hagta mustaqbalka dadka laakiin dadku markay fardi tahay inta ugu badan leh maxaa bulshada anfacu leh kama fakaree maxaa jeebkayga u roon buu ka fakaraa socanka maaha haddaba waxa jeebkaaga u roonay waxa interestkaaga u roonna inuu noqdaaba fiican bay leeyihin sabjigu inuu interested yahay adigu aad jeceshay dadka badhba waxbay jecel yihiin ثاني الأمر waxay dhahdaan fursa waa inay jirtaa haddaad dee meeshaad joogtaba aan sabjiga lagu haynin ama aanad awoodi karaynin oo dhaqaale ahaan yani fursad haddaanad haysanin inaad kaga riyootaa ma fiicna waa inay fursadu tahay wax possible waxa kani oo deegan karayso ka saddexaad waxay dhahaan qudra inaad awoodi karto yani maalan sabjigan aad jeceshay waa sabjiga u baahan calculation tiro badan leh adiguna xisaabta kuma fiicnid therefore waad iska laablakacbaad wadaayo ma aha wixii aad baran lahayd waa inaad qudro u leedahay sabjiga inaad baran karto saddexdaa shay haddii ardaygu isla hela bay yidhaahdaan waa good choice-ka waa sida ugu fiicana loo doorto bay yidhahdeen sabjiga inaad qaadato macaayiir shanina bay yidhaahdaan oo kale iyana way qiimo gelisaa laakiin waxaasoo dhan isku soo duuduub waxaan leenahay haddaad rabto time management asalkiisu waxa ah inuu waktiga iyo qiimaha uu leeyahay inaad fahamtid waana ta qur-aanka iyo xadiidku inta badan inoo sharxayaan inta badan ay ceebaynayaan qof aan aakhiriya adduuntoona noloshiisu ka tirsanayn inta badan qur-aanka iyo axaadiistu ay ammaanayaan acmaal yaryar oo lagu janno tago waa si waqtiyadada firaaqa aad waxa kaloo dhan ugu buuxin kartid idan waqtiga iyo ahmiyadiisa inaynu fahmno qodobka hadduu inaga dhaadhaco waxa soo hadhay waa farsamo oo saynu u farsamayn lahayn haddaba waqtigaasaynu uga faa'iideyn lahayn saacad walba waqtigaad qaban lahayd qayb nolosha ka mid ah ilaahay baa jadwaladeeda inoo dejiyey waana good thing maalintii 5 jeer baa laynidhi tukada
ووقتك جدول لو سمي شنقور إن عمل كاقبطين هذا إلهي لحديدا وحين هذا ما برنامج هذا وقف في عنه وحلو قابيه صلاة الصبح إلى الظهر محان قبطه ظهر إلى عصر محان قبطه عصر إلى مغرب محان قبطه مغرب إلى عشاء محان قبطه nolosha waxa kamida cimrigeena balaan la yiri one time sameeya xaj one time waxa kamida wax la yiri sanadkii mar sameeya oo waajiba soonki waxa kamida sanadkii wax la yiri mar sameeya oo zakadii hadaynu bixin karno idan waxa yiraahdaan nolosha qofka muslimka oo dhami waa programmed asliyan laakiin waxa ka dhiman intii lagu buuxbuuxinayay oo ah adigu waqtiyada u dhaxeeya hadaba waxa timing-kan leeynoo siiyay jadwaladan baa la leeyahay inaynu ku dhaqanno inuu jadwaladu nolosha qofka muslimka ay ka mid tahay to do list inuu ka mid yahay priority inay ku kala leeyihiin waxa soo dhami ka mid yihiin hadaba waxaynu u baahannahay inagu ka muslim ahaan inaynu dib ugu noqonno nolosheeni oo dadyaga waqtigoodu ugu lumista badan yahay maanta waxa kamid ah caalam islaami in badan oo kamid la fi dunya wala fi aakhirah labada midna lagama faa'iideeyo qayb badan waxa sababay jahliga ama jahliga nololeed ha noqdo jahliga diimeed ha noqdo ayaa noqday عيب وحا هدبا انت intellectual كشيغتا ان اينا انت جهالة الله من نغطة وعيب توقوي انت فرصة وحبرشة هالشي جامعة هالشي اللول لغا شقاين يتمي داد منظمة اتمي نولال اركتي كقدسان تيأي شوغين ان اينا منتالة قدو سيدي اهادو اسيو فكرتان noloshaadu say u bargaraam garaysantay uu ahaado odaygii burco joogay sidii uu waday aragtidiisii ay ahaato waa wax ceeb ah idan dad dhalinyaro baatiin ardaya dhul wax laga barto jooga waqtigiina ka faa'iidaysta oo degree iyo 2 iyo 3 iyo 4 ba waad qaadan kartaa haddii uun aad tahay qof soo jeeda oo nolosha inuu hadaf xaqiijiyo ka damacsan waxaan jeclay warku inuu koobnaado oo risaalo kooban dama macallin baan ahaan jiray maskaxda bini aadamkuna in bay qaadaa hadalka badanina kiisa hore kiisa dambu masaxa warkaan u socdo dhimo wax weeyaan war waqtiguna qiimo agtiina ku yeesho jadwalada iyo to do list ki intaana waa ka adagtiina samaysta laakiin daqiiqadaha ku xisaabtan qofka soo noolaada دي حبالات دد لغا سو عليو خو سباyn laha baad u malaynaysa moodan laha arurti maxaan ka tagay xoolihii xagay jiraan dadkii yaa dhaxladay baabka ma ka fikir laha bise waxaad u malaynaysaa inuu subxaanallah da boobi laha ya la ilaha illa allah wuxuu de soo arkay meesha wax ka tarayso yani in daqiiqadii ka lumin uu ku xisaabtami laha idan nolosha markaynu leenahay waqtiga ka fakara saacadaha ka fakirin minutes kaaga balaangare dad maqasho aqoonyahan baa dunida soo maray waa qof noloshiisa ka faa'iideeyay tusaale waaxid aan dasiinaya in culimadii muslimiinta ka mid ah ayaa waxaa la yidhaahdaa kitaab buu qoray 800 oo majaladooda waa hal kitaab oo 800 oo volume qiyaas alfunuun baa la odhan jiray kitaabka wixii aqoon maanta waqtiga dunida taalo dhan buu ka warramaya waxay doonto baa noqoto 800 oo kitaab imsaad ku qori lahayd aad malaynaysa inaga de kaatibkeena ugu weyn horta de markaynu Soomaalina shan buu qoray Soomaa waxa joogaan wax ma qoro laakiin kitaab la qoraa waa wax qorista waxa ka horeysa waxaad ku qori lahayd inaad soo toojiso wax soo akhrido intani markaad 20 buug akhrida laga yaabo inaad hal buug soo saartay
ninka 800 volume qoray muxuu isagu soo akhriyaa malaynaysa ama soo barta ilaan muu riyoone 800 volume inuu qoro ninkaasi waqtigiisa wuxuu ku qaatay qisaska qariibka ay ka wariyeen waxa ka mid ah cunadii ayuu wuxuu yidhi waqti badan bay qaadanaysaa dabeetana gabadhi walaalihii baan filaya inay ahayd uu diray wuxuu walaal cunada haddaan fadhiisto oo calaaliyo raamiyo waqti qaadanaysaa baasha qoosho wax la cabo ka dhig cunadii wuxuu ka dhigtay inay noqoto maxay saan tahay uga lumin wax la cabo marka uu daalo oo qori kari waayo wuu iskala bixiyaa wuxuu yiraahdaa intaana waxaan ka fakaraa bayjadka dambe wuxuu ku qori lahaa sidoo nidaamin lahaa inta uu kala baxsan yahayna yani qofka bini aadamka sida uu fakiray waxay noqonaysaa inuu wax soo saaro culamadii hore ka mid ah mid yiri istaaga ku waramay orada cadceeda jooji buu ku yiri way buu yiri تعمر خسارين سبيل هذا عدد جوجي أنا واستاجية وقت جيد هذا دي علنيس لكن هذا وقت بيوصل عنايا مرة بورك قبول هي شغال هيا لأن قفكو هذا وقت يسكو حساب طبعا قف كان للي عالم بون نقضي أقوياهم بون نقضي وانتو وقت قليل وحي وأنبياء دي بكو قبوب أنبياء دي دبدت عندنا وحيكم مسعودة عقل بدن انت مال الله فريستنا وحمد الله تضل فريستو عقلي وينتي عاويه بالربا عقلي وين halka la fadhido waxba kama soo baxaa laakiin wa how much you feed qofku intuu balaadha intuu cuno soo maaha nima wax cuno nimiyo balaadha maya aqli aan wax lagu shubina wax kama soo baxaan idan qof baa caalim noqday iyo khabiir buu noqday iyo kan buu noqday waxa weeyaan waqtigu ka faa'iiday classmate-kiisi muxuu noqon waayo waqtigaanu ka faa'iideynin qof kasta oo waqtigiisu uu qiimo ugu fadhiya nolosha waxbuu ka dhalinaya qofkii aan waqtigiisu qiimo ugu fadhina dee saynu soo jiray buu soo jiraya mid araga ku eegna oo dali karaysa insha Allah ta'ala hadii waqtigu kugu simo laakiin dunida culays baad ku tahay زيادة وقفكم بدون دكوية دان وحوس يوكر دينيني وزيادة على الحياة إن تسدي إلى هو أبو ري ودول تاجناتا يدو عقل لك وسيا ودي التمر وحبك كاسو بحوايان ووحليتا موضوع اللي يكون دور يوم في ليالتين دت كان intellectual كي ودك وسو السعودية ومضة إلى ربينا وحبدلان وحد شوفتان هذا وقتي jucbada la dhaansanay waqtiga ahaantiina dhaansan lahayd waqtiga idin midhadha lahayd waa idin dambeeya hadda haddaad bakeeri noola timaadana in bakeeri uma laga heli haddaad adoo booyad sida la timaadana waxbaad tari doontaa waa saad jucbadaada u soo dhaansato taasina waxay ku xidhan tahay waqtigaaga saad uga faa'iidayso sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin